haddii aad ku cusub tahay channelkeena Mihigaan Production fadlan subscribe dhe kambalelkana furo saad u hesho macluumaad dheeriya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوا داوديال Mihigaan Production وإن عوائدين هيسا برامج روتي برامج لما قاعد بحيان فلقين تأسبوع ومركز يعني كوي إنه وحي عصوبة مركز تهاجن وأوبهن إن لقاها الله يسمى مركان لفلقيه وحسيت أصوب رأس عن كرتان أحرمها عصوب يقولي بقى دنيا عالم كوحيابها كسر كردو يقولها الصومالية ويضو أنا كمرنا يسوقانتي الصومالية يقولي بوحيابها مركزي سجلك عاد كدجوج ويوش عليهين وعاد خلاص عن كرتو Mihigaan Production شرقرية لايكرية سبسكرايب نا هكوجا إن جمال خيرنا ليرجع رجع وها أن وديكوا هنا هالكن قلب أنا أفلقين دونه اسمه مركانا قلب حساسية هدي هذا هو مغلق شرتين لسوها بليين شري هم بليود عركها مري شرتي أطمة أراس يدع شرتي وهالكن مات ميس خسارن قبل الصوماليات ولقوا مقعبة صابرين دوره oo isla markaasi calmatay jilaaweyn oo caanka dunida caalamka oo runtii isagu magac weyn ku leh shirkadaha filmaanta markaasi matasha soo saarta isaguna jilaaweyn oo caan yahay waa kuma ninkaasi ay calmatay muxuu qabtaa muxuu ka shaqeeyaa noloshiisu maxay integer buu soo maray guur nooc kan oo kale ah iyadu waa oridii labaad miya ama tii saddexaad ama tii afraad ba arrimaha soo dhowra Mihigaan Production ayay caawa ilo tahay sida wayayga roobko Mihigaan ka dabaymi mirale habeenku lahaa uskeed shiwaabri jilaaga weyn la yiraahdo Idris waxa uu guursaday markaasi ina Soomaaliyada oo guud ahaan Soomaalidu qodobkan ay aad u hadalhaysay dunida caalamka ku cusbaa Idris waxa uu dhashay dalka Sierra Leone waxana uu markaasi dhashay 1972 waxa ay isku calmadeen ama ay iska heleen wadanka Sierra Leone isku guursadeen markii dambana waxay u soo hayaameen magaalada London Sierra Leone iyagoo iska helay calmashadooda magaalada London ay u soo hayaameen waxa uu markaasi ninka la yiraahdo Idris Akuma oo dhashay 1972 waxa uu dugsiga sare kaga baxay ama uu aqoontiisa heer caalami dugsiga sare uu ku soo dhameeyay sanadkii 1988 magaalada London ee dalka Britain sidoo kale Idris waxa uu caan ku yahay xagga DJ-nimada ama heesaha oo kale isagoo markaasi tuma shaqadii horeysay Idris waxa uu ka bilaabay oo markaasi uu si toos ah uga bilaabay hoteelada ama meelaha baararka la isaga yimaado isagoo baararkaasi heesaha ku soo bandhigi jiray DJ-yadana markaasi uu kamid ahaa halkaasi ka tuma sidoo kale Idris filmaanta aadka caanka ugu yahay oo ku soo caan baxay filmaanta dunida lacagaha ugu badnaa lagu kala gatay markii ay soo baxeen waxa kamid ahaa filimkii The Strength oo ah film aad caan uga dunida iyo waliba filimka la yiraahdo HBO oo ah taxanaha film taxanaha oo in badan soconayay oo Soomaalidu ay taqaano musalsal oo kale ayuu dhikaas ku soo caan baxay sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay filimkii The Wire oo ah filim laga sameeyay Nelson Mandela oo xorriyadii dalka iyo markaasi ka hadlayay oo ka sheekeynayay long war of freedom filimkaasi oo taxanaha ninkan waxa uu 1994 waxa uu jiray filmaan aad u badan dunidana si xoog leh looga xiiseeyo sumcad aad u weyn oo ku yeeshay ninkan inala xididay inanta Soomaaliyeed markaasi guursaday iyaduna ay calmatay oo markaasi ay soo dhaweysay waxa markii uu horeysay uu ka qayb galay bandhig ama bandhiga labaad ee BBC Radio oo uu ka qayb galay markaasina uu halkaasi uu ku qaaday oo noqday shakhsi markaasi looga dambeeyo xagga DJ-nimada markii laga yimaado intaas oo dhan waxyaabihii uu ninkani soo qabtay iyo wixii uu soo jiray iyo wixii uu markaasi soo kharibayba ninkan marxaladaha guur ee uu soo maray baynu wax ka taabanaynaa waxaanu kala wax ka taabanaynaa shakhsiyadda qofkani uu leeyahay maxay tahay jiraanimada markii laga yimaado ninkani waxa uu xaaskiisa ugu horeysay uu guursaday
waxaa la oran jiray Kim Norchat baa la oran jiray 1999 ayuu guursaday 2006 waa ay kala tageen waxaana halkaasi ugu dhashay oo ay iska heleen laba ilmo oo caruura ay halkaasi iska heleen oo ay markaasi u dhashay xaaska hore xaaskiisii labaad waxa uu guursaday sanadkii 2006 waxaana ay u dhashay waxay markaasi 4 bilood kaliya ayay isqabeen oo 4 bilood oo markaasi ninkaas qabay haddaba su'aasha isweydiinta leh Soomaaliya ayaa waxay tahay sidee bay inaan tani inaan nooc kan oo kala dunida aad looga yaqaano oo aan isku diin iyo isku culture ahayn ay markaasi u jeclaatay oo calamatay jacayl warka ma heli karayno oo inay jacayl ku raacday inay arrimo kale magac ku raacday bal arrimahaasi oo inuu ka wada hadli doono in kula yar nasano qadar heesa maadaama qamnaan isla bixino xoogaa magaraysa estan markaasi aynu kuna sameeyno ayaa waxay tahay ciladu faa'iido ma leh bal cilada in lagu sii joogi doono maadaama 3 jeer uu soo kufay kariina taneentii saddexaad tahay isku soo noqdo wanaagsan واتهاي هدي المجلس تاسين تاسكودا فنوع عدد فايدة ملء فصلي واحد كلوين وهذا بمدين مشروع كان أي خصيصة لكن شلاقة عينة الصومالية ليس عمضي فايدة سوى يهين يعني تعال بركاسي رسمي وسيوارا وما هيجان برودكشن يو فلقين تسبوع أو إنه إنتاسي كسو كوبينو سكرايب يوتيوب لباية هذا أهلي بنا أدب ما ستين كحنا وسيادو قاتوا عليها الدنيا اليوم اللي بوحيابها عصيبة كسو قرر الدنيا العالم كي يجودهان كي الصوماليين بس سيدا ما يجربكو ما هي كان كتبايمي